أنت هاي لعبت تلا hooyada lacag u diree waa yuusuf cali yuusuf oo la socday aabbihii markii aan ku kulannay goob timaha lagu jaro oo ku taalla suuqa kaarmeel oo ah suuqa ugu weyn ee soomaalidu ku leedahay gobolkan minnesota yuusuf waa shanjir waxa uuna ka mid ahaa carruur badan oo waalidkooday adeegga ciidda uga samaynayeen suuqyada gobolka yuusuf ayaa ciiddan raba in farxaddeedu aanay keligii ku koobnaanin oo uu la wadaago hooyadii oo aad uga fog hooyo intay joogtaa هيا حمد xamaray joogtaa marka waxaa rabtaa inay maalinta ciidda ayadana farxada miyaa saas lacagta ugu diree maasha Allah lacagta intee ka geenaa hooyo u diraysid لعبت تلا أبو ma ka qaadee axmed yare waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha timajaraha axmed yare barbershop waxa uuna ii sheegay in xilliga uu diyaargarowga ciidda ay shaqeeyaan in ka badan 16 saacadood oo mashquulkuna aad ugu badan yahay axmed yare ayaa sharaxaya sida ay waqtiga badan shaqada u socodsiiyaan macaamiishana u qanciyaan waxaan sameynaa liisan qornaa dadka sidii u soo kala horeeyeen sidii u soo kala wactameen markaasi oo nidaama oo si sax ah oo sharci ahaan u qornaa marka sidaas loo kala hormariyaa gudaha suuqa kaarmeel waxaa isdhex maraya dadweyne aad u fara badan oo aad mararka qaar isleedahay ma waxaad joogtaa mid ka mid ah suuqyada magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho marka aad eegto siday bulshadu isugu diyaarinayaan dabaaldegga maalinta ciidda waxyaabaha safafka loogu jira waxaa ka mid ah xalwo quruxlow oo ah xalwo aad looga jecel yahay gobolka taasi oo dadka qaar ay xitaa u dirayaan asxaabtooda ku dhaqan gobollada kale ee dalkan Mareykanka sidoo kale goobaha aadka mashquulka u ah waxaa ka mid ah meelaha cilaanka lagu saaro maasha Allah markii la gaaro xilliga ciidda waa u jeedaan dadku aad bay cilaan u saaranayaan u soo bingareysanayaan waa waqtigii sanadka qamar xalane waxay ka mid tahay howlwadeennada rugta cilaansaarka ee Sisters Xinna oo xilliga ciidaha ay hawsha cilaansaarku aad ugu badato waliba cilaanka caruurta loo saaro ciyaalka waardintooda ayaga soo qasbaan ayaga dhahan cilaan arabnaa xilliga la gaaray xilligii ciidda in cilaan noola saaro waa ma ciideena anagoo cilaan noola saarin sidaas lagu keenaa sanadba sanadka ka dambeeya waxaa aad u sii kordhaya horumarka ganacsiga ay Soomaalidu ka sameynayaan gobolka Minnesota taasi oo keentay in bulshada qaar ay ka maaranto inay u adeeg doontaan xilliyada ciidda dukaamada gobolka ee iibiya dharka casriga ah Zizi Boutique waa dukaan ay leeyihiin gabdho Soomaaliyeed oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dukaankan oo lagu iibiyo dharka dumarka ee dhaqanka iyo casriguba ogol yihiin ayaa Balqiis Cabdirasaaq Xirsi oo kamid ah milkiilayaasha dukaanku waxay ii sheegtay in ciidda darteed ay macaamiishoodu kordheen iyaguna ay bulshada ciidda awgeed waxyaabo kala duwan u keeneen ciidda kaligeed waxaan ugu talagalnay collection waxay yiraahdaan oo qaas ahaan ciidda kali loogu talagalay kalaro ka duwan ah goonooyin ah cambuura ah khamaara ah oo qaas ahaan ugu talagalnay ciidda kaliyoon hablihii ciidda u qalab aruursanayay ee aan Zizi Boutique kula kulannay waxaa ka mid ahayd Dheeman Ismaaciil Cabdiraxmaan waxaan ka iibsada goonadaanito iyo fanaanada iyo dharyaal badana closetkayga dhan waa alaabta Zizi marka ciidii wixii aad rabtay waa heshay marka ciidan waxa leedahay waa diyaarsana waa diyaarsana waana shidanahay Axmed Yare Barbershop ayaa ka mid ah goobaha looga dabaaldegayo looguna diyaar garoowayo munaasabadda ciidda oo sida idiin muuqata aniga laftaydu aan qayb ka noqday dadka timaha loo jarayo ee munaasabadda ciidda u diyaar garoobaya maalinta ciidda ayaa lagu qiyaasayaa inay ku soo beeganto maalmaha Axadda ama Isniinta ase ahaatee waxaa durba bilowday in bulshadu ay isugu sii hambaliyeyso munaasabadda ciidda Mano Balqiisa anoo Sumaya waxaan oranaynaa ciid wanaagsan oo wacan Maxamuud Mascade VOA Minnesota